dhammaan ummadda Soomaaliyeed culimada hoggaanka wasaaradda oo wasiirku ugu horeeyo howlwadeennada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa horta salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin khayr leh waa maalin taariikhi ah waa maalin aynu u joogno inaan dhagax dhigno dhisme casri ah oo qurux badan oo qaybo kala duwan ka kooban oo hoy u noqda wasaaradda diinta iyo awqaafta haddii berigii hore ay ku dhex xadfanaan jirtay bahda garsoorka iyo wasaaradaha oo ay marti dareemi jirtay maanta wixii ka dambeeya hoy aad u qurux badan sidii madaxweynuhu uu faray in badan buu madaxweynuhu nagala hadlay wuxuu yiri iskuulaadkana 5 dabaq baynu ka dhignaa malcaamadana waxaynu ka dhignaa meel yaro cariisha adduunweynaha markaad safarto meelaha ugu waaweyn ugu quruxda badan caalamul islaamka waa masaajidada dadka Soomaaliyeed waxaan soo xasuustay safar baanu annagoo hawl qaran ku jirnay cadaada ku aad masaajid weyn oo ma sha Allah aad u qurux badan baa dhismihiisii socday niman gobolada ka kala yimi iyo xilligii doorashooyinka ay dhowr sano ka hor iyo rag federaalkan isugu jirnay ninba markaa wuxuu yiri war masaajidkan hay'adee dhisaysa nin deegaankaaba wuxuu yiri hay'adee dhismayse nin deegaanka u dhashay baa dhisaya awal markaa wasaaradaha kale marka la dhisay hay'adee dhisaysa la isweydiin jiray horta wasaaradii diinta iyo awqaafta dadkii Soomaaliyeed ee islaamka ahaa iyo dawladoodii baa iskaashanaya wada dhisanaya oo looma soo dawarsan iyaga dhisanaya iyaga quruxsanaya kharash Soomaali ka yimi iyo hawl dawladda ka gashay bay ku dhismaysaa inta kale markaysay qorshayaasha kalena wasiirku way noo sheegay waxaan rabaa inaynu isla qirno haddaynu dadka Soomaaliyeed nahay waxa inaga dumay horta ma ahayn dhismayaashii dawladihii kala duwan ay noo soo dhiseen waxa inaga dumay ma ahayn kanaladii iyo wabiyadii iyo beerihii oo kaliya waxa inaga dumay oo dhaawac inaga soo gaaray waa qiyamkii iyo waxay ummadda Soomaaliyeed aaminsanayd oo ah diintoodii wixii ay faraysay bay ka tageen wax lidku ah bay ka shaqeeyeen dhac dil boob takoor baa wuxuu inoo noqday caado taasina waxay sababtay inaynu dal ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaanba u jiri weyn haddii la rabo markaa dadaalkan loogu jiro in dib loo soo nooleeyo qarankii Soomaaliyeed oo uu noqdo mid kaamila oo buuxa haddii la rabo waa in laga soo bilaabo arrimaha diinta la xiriira oo qof aan aaminsanayn in waxa uu ka shaqeynaya ay khalad tahay oo aan diinta la barin lagama filan karo inuu ka waantoobo wasaaradani waxay u tahay halbowle dib u soo kabashada qaranka Soomaaliyeed ilaalinta sharafta ciziga iyo karaamada dadka Soomaaliyeed askariga howlwadeenka wasaaradda jooga ka gobolka jooga dhammaantood haddii diintoodu ay mataqaanay dhisan tahay oo ay ka xishoonayaan wixii Ilaahay ka reebay iyo rasuulkiisu oo wixii la farayna ay qabanayaan waxba inaga xumaan maayaan markuu qofku yimaado wasaarad dundunsan oo soo darooraysa oo il daran war dadkani diintoodu qiiman maayaan booranaya laakiin bari marka dhismahan la yimaado dadka waxay bedelaysaa aayahooda waxaad ogtihiin diinteennii oo ay qoliyaha qaar si khaldan u turjubeen inay ku caburinayaan oo ku dulmayaan dadkii Soomaaliyeed waxyaabaha ay ku andacoodaanna waxaa ka mid ah dawladda ridada iyo waxba yiraahdaan dawladdu waa inay u muuqato dawlad diintii weynaynaysa u muuqato maaha waa inay xaqiiqiyan
arrintaasi ay tilmaamaha laga arko dhismayaasha xarumaha dawladda masaajidada malcaamadaha mudane wasiir adiga iyo howlwadeennada aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dadkii Soomaaliyeed way idinka mahad sheegteen arrimaha xajku maalinba maalinta ka dambaysa way soo hagaagayaan dawladdu wasaaraddu ma uu qabato arrimaha xajka oo kaliya shaqooyin joogto ah oo kor joogtaynta masaajidada dacwada ummadda waxa loo sheegayo iyo dadkeenni inaan la khaldin ayay ka shaqaysaa wasiirku isagoo maxbuus ah xilka loo magacaabay inta laga soo saaray maantana guuluhu soo hoyo waynu aragnaa ilaahay isaga iyo bahda culimada iyo howlwadeennada wasaaradda ba khayr badan ha ka siiyo farxad weyn bayna gelinaysaa maanta inaanu dhismahan dhagax dhigno guul iyo gobannimo baynu dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa ayaama ka bacdi waxaad maqli doontaan iyadoo deegaanada mudug galguduud hiiraan shabeelle laga sifeeyay nimankii khawariijta ahaa oo inta webiga dhanka loo dhaafo ilaa iyo jilib iyo jamaame la socon doono halgankaasina waa halgan dhaqan ma aha waa mid aynu ku ilaashanayno diinteena suuban ee saxda ah oo aynan qaadanayn kuwa raba inay janno ku tagaan inta ay dilaan 1,000 qof oo Soomaaliyeed oo salaad ka yimi ama u socda oo soobe maraya kuwaasi ma noqon doonaan garwadeenka diintii culimada iyo wasaaradda noqon doonta ilaahayna innaga ayuu guusha ina siin doonaa aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiin